Howlgalkani ciidanka Commandos-ka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa burburinta meelaha argixisada Al-shabaab ka soo abaabulaan dhagarta ay u soo maleegaan shacabka Soomaaliyeed. Howlgalka ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inta uu socday waxay ka sameeyeen deegaano ay ka mid ahaayeen Garas-Gawaan, Galka Saalimu, Doonyare, Doonweyne, Tixsiile, Warmaxan, Maracade, Ceelsaniini, Qodqodka, Gandarshe, kuwaasi oo ka mid ah meelaha ay gabaad ka dhiganayeen maleeshiyaadka argixisada Al-shabaab. Howlgalka ayaa intuu socday ciidanku waxay ku burburiyeen maxkamad beenaadkii argixisada Al-shabaab ay ku dhibaateyn jireen shacabka Soomaaliyeed iyo meelihii ay ka soo maleegi jireen dhagarta ay u soo maleegaan shacabka ku dhaqan gobolada Shabeellaha Hoose iyo Banaadir. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka afraad guutada 16aad ee Commandos-ka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa howlgalka intii uu socday waxay khasaare kala duwan ku gaarsiiyeen maleeshiyaadka nafcaariga ee Al-shabaab. Guud ahaan dalka oo dhan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka wadaan howlgallo lagu ciribtirayo maleeshiyaadka argixisada Al-shabaab. Howlgalladaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay qayb ka noqdeen shacab is-abaabulay kuwaasi oo markii u dulqaadan waayeen dhibaatada maleeshiyaadka argixisada Al-shabaab bilaabay in ay qayb ka noqdaan howlgalladaasi lagu baacsanayo nabadiidka.